fanaanada caanka ah ee Fartuun Balbalaarka oo heshay aqoonsi heer caalami ah wadankee ayay ka heshay dhalashada qaab nuucay ah ayay ku heshay maxayse ka tiri muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa ee heegatan ila daawilaa dhamaadka waxaad ogaan doontaa wax badan oo ka qarsoon asxaabtan u shargaree follow ileegna waa inoo muhiim mahadsanid fanaanada caanka ah ee reer Muqdisho Fartuun Balbalaarka oo dhawaan tagtay dalka Kenya ayaa heshay aqoonsi heer caalami ah taas oo ay la yaabtay Fartuun Balbalaarka iyo saygeeda ayaa dhawaan safar muddo dheer ay sugayeen waxay ku tageen dalka Kenya kaas oo ay sheegtay markii ay garoonka ka degtay diyaaradii waday ay ka baqaysay in la xiro balse ay la kulantay arrin ka yaabisay waxay sheegtay in markii ay diyaaradda ka degtay dalka Kenya loo maleynayo qof ajnabi ah balse markii dambe si weyn ay dowladda Kenya u soo dhaweysay cajiib Fartuun oo aad moodin ay aad u faraxsan tahay ayaa sheegtay in lagu wargeliyay in dalkaasi meesha ay doontay ka mari karto oo ay tahay xur maadaama ay tahay qof Afrikaan ah waxay tilmaamtay in dad Soomaaliyeed oo Kenya jooga muddo 20 sano ah ay sharci la yihiin iyadoo maalmo kooban joogtana ay si xurnimo ah magaalada ku wareegayso aqoonsiga la siiyay ayay sheegtay inay ku heshay magaca iyo muuqa beesha ay ka soo jeedo taasna ay tahay wax lagu faano oo iyaga u qaas ah waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada beesheeda ah kuwa oo ay sheegtay in Kenya si xurnimo ah ay ku mari karaan haddii ay tagaan taasna ay tahay wax lagu farxo Fartuun ayaa sheegtay inay la kulmayso madaxweynaha Kenya oo ay la balansan tahay waxayna tilmaamtay in Kenya ay iyadu leedahay oo ay xur u tahay Nairobi markaa imaaday meesha oo airportka aan ka soo baxay ajnabi yaa la maleynayay Nairobi mar hore sharci la'aan ku mari kartaa yaa la dhahay meeshan adaa iska lahaa la dhahay Afrikaana tahay yaa la dhahay xura u tahay war Soomaaliya ka warama qof 20 sano joog sharci la'aan inuu yahay anigoo hal maalin joogo in Nairobi xur aan ku maro sharci la'aan meel walba aan maro wariya wallahi jareernimada caadi maaha wallahi hadaa jareertiida ku dhahay usankan weenka ku yaalay afkan iyo gafuurkan xur meel walba ku mareysa ka waran wallahi bilaa Kenyaati waani salaame Jomo Kenyaati madaxweynaha Kenya bir la soo kulmi rabaa Nairobi أنا إسكال وحي ما عندك بلابطو Jomo Kenyaati waa ku salaam saaxiib Nairobi xur I love you Nairobi Fartuun Balbalaarka ayaa muddo dheer sugaysay safar noocaan ah inay Kenya ku tagto waxayna sheegtay in hadafkeeda ay gaartay haddaba sidoo aragtaa aqoonsiga la siiyay Fartuun Balbalaarka